hamogaan oo ha ka maqnaan Marwo Beauty and Cooking. waxaad ka helaysaa wax kasta oo ku raali geliya ku korso caruurtaada wax nafaqo leh ku soo dhawaada roodhida quruxda badan leh iyo waxaan ka diyaariyay. bismillaahir rahmaanir rahiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. asxaabta aad ayaan idin salaamayaa meel kasta joogtaan iyo goor kastaba. inta ka bacdi daqiiqda aan idin la wadaagayo xashideedii idin lama wadaagin laakiin hadda ay diyaar tahay ayaan idin la wadaagi doonaa. waxay ka kooban tahay haaf galey ah, 2 koob oo daqiiq ah, xabad beed ah, 3 malqacdood oo naturyoogad ah, haaf caano ah, allahumma salli ala maxamed, 2 malqacdood oo sonkor ah iyo 2 saliid ah. inta ka bacdi waan isku xashay iyo fixiso 2 malqacdood oo fixiso ah. intaas ay ka kooban tahay. haddana waxaan ka diyaarin doonaa insha Allah roodhi iyo wixii aan ku dari doono isla socod wanaagsan. caanahan iyo jumnadan ayaan isku qasi doonaa insha Allah. caanahan ma macaan oo sonkor ma laha. isla socod wanaagsan. roodhidii ayaan soo jarjaranayaa. halkan saxankii aan ku guran lahaa ayaa ii yaala. daqiiqdii ayaan hadda gacanta ula tagi doonaa insha Allah bismillaahi kariim. dayaha moogaanina oo ha ka maqnaanina. subscribe-ka, like-ta, comment-igu waa xaqiina. saxaabtayda quruxda badan leh, saxaabtii hore ila joogtay iyo kuwa cusub waxaan leeyahay soo dhawaada. gurigu waa gurigiinii, ducadiina iyo dhiirigelintiinana waa dhiirigelintayda. la-aantiin abaar waaye. daweydinkaas roodhidii saasan u kala bixinayaa insha Allah. saasan usoo laabi doonaa haddii Allahu ka dhigo. sidaas ayaan ku geyn doonaa waxaan leeyahay bileedkii aan ugu talagalay. isla socod wanaagsan. waxaan isleeyahay quraac yar oo qurux badan maadaama berri ah xataa aan iskuul jirin aa ka dhigataan. halkaas ayaan isugu geeyay. islaantu maxay hawl soo wadaa. tan shukulaad ayaan ku laabi doonaa insha Allah. isla socod wanaagsan markaan soo dhameeyo iyo say soo baxdo. waa kaasa aan kurti shukulaadkan wada gaarsiinaya ka bacdina waan ku duubayaa. markaan ku duubana waa arki doontaan say soo noqoto. waxaan idin leeyahay ha moogaanina oo ha ka maqnaanina. Marwo Beauty and Cooking waxay idin haysaa qurxintii, cunto karintii, casariyihii iyo waxyaabo kala badan oo soo socda. hadday tahay sheeko, hadday tahay qiso, life, nooc kasta islaantu way soo wadaa. ha ka degdegina. sidaas ayaan u duubi doonaa insha Allah. aad aragtaan waxaan ku soo ridi doonaa iyadana weel kale. waxay soo bixi doontaa roodhi aan inaba caadi ahayn. saxanka yar ee dhuuban ayaan ku riday. waa saxanka toos baarooda ama slice-ka roodhida slice-ka lagu darsado. caanaheeni ayaan hadda halkan soo dhigtay. sidaan ka dhigayo isla arag wanaagsan insha Allah. waxaan ku diri doonaa 2 xabo oo keesa ah, 2 malqacdood oo keesa ah, caanaha macaan iyo caanihii bilaa sonkorta ahaa maadaama ay caruur cunayso. waxaan isleedayaa caruurta ha iska macaaneystaan maadaama qaarna shukulaad leeyihiin. ha moogaanina oo ha ka maqnaanina. Marwo waa madashiina. idinka ayaan idin maqanahay markaan maqanahay. balmahan soo qasayo say soo baxdo waan isla arki doonaa haddii Allahu ka dhigo. asxaabtayda jiro jooga ayaan idin leeyahay. ha iga maqnaanina, meel ha iga aadina. meel kasta joogtaanba waxaan idin leeyahay soo dhawaada. waan isku qasi doonaa hadda. caanihii macaana, caanihii kale iyo fermaajkii ama keesihiisa u taqaanaan. roodhideeni ayaa inoo diyaara. korka ayaan kaga shubi doonaa. marka aan korka kaga shubana way la arki doontaa sida ay soo baxdo haddii Allahu idmo. daweydinkaasaan ku leeyahay saxaabtayda waa ka heli doontaan. aad ayay u macaan tahay. caruurtana aad ayay u jeclaan doontaa. nafaqadeedii ayay wadataa.
koob caana iyo intaa qof ilmahaada isugu dhiibto anigu de wax ka maqan habeenkaa caawa ah ma garan karo. insha allah waxaan rajaynayaa asxaabtaydu inay ka heli doonaan soona samaysan doonaan roodhida heerka sare ah, dhammayska tiran, nafaqada leh, dee aan waxbaba aadan suuqa uga baahanaynin. kolley brioche baa la yidhaahdaa, brioche bay yidhaahdaan ama brioche, roodhida macaan. weydinkaa haddaba weydinkaa waxaan idin leeyahay roodhideeni markay soo dhammaystirantay sidaas ayay soo baxday. waad aragtaan jileeceeda, waad aragtaan say usoo casaatay kor iyo hoos, waad aragtaan saas ayay soo baxday. casho ayay ku noqon kartaa, quraac ayay ku noqon kartaa. kii kalena waa kan ee shukulaadka ku laabayay, caadi ma aha. waxaa ka midow waa keesihii ayaa korka dabku ka leefay, laakiin dhibaato ma laha. aad ayuu u macaanya marka la jarjaro. insha allah waxaan jeclaan lahaa ma rajaynaya inay asxaabta kasoo tuuri doonto. waxaan idin leeyahay asxaabay, fiidiyowga hore usii wada, laagta, sheerta, commentigu waa xaggiina. intaan fiidiyowga xiga isugu imaanayno maxaa inoo ballana. في أمان لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.